waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka caawa ee Fagaare Production. wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo weerar afka ku qaaday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. madaxtooyada Soomaaliya oo la ogaaday qofka ay u wado madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyadoo ay cakiran tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka. siyaasiyiinta iyo madaxda ayaa u kala qaybsamay laba garab. xogo iyo warbixin xasaasi ah ayaan idinkaga hayaa. xiisad u dhaxaysa Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo caawa ka taagan deegaan ka tirsan gobolka Mudug. Kenya oo dhaqaale xumo wajahaysa kadib xayiraad ay saareen Soomaaliya iyo dalal kale. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Fagaare Production. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. u diyaar garoow qodobadii aad daawateen oo dhameystiran. markale kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ku bilaabayaa caawa. iyadoo ay cakiran tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka, siyaasiyiinta iyo madaxda ayaa u kala qaybsamay laba garab. xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa gashay mid ka mid ah waayihii ugu adkaa ee muddooyinkan, waxaana socdo loolan xoogan oo salka ku haya doorashada soo socota sidii loo qaban lahaa iyo cidda ku guulaysan lahayd. siyaasadda Soomaaliya ayaa ku soo aruuraysa dad kooban oo ah kuwa ugu miisaanka culus, kuwaasi oo ka kooban laba isbahaysi oo mid uu yahay isbahaysiga dawladda halka kan kalena uu yahay mucaaradka oo dhinacyo kala duwan leh. siyaasiyiinta mucaaradka ayaa xoogeystay kadib markii qaar badan ay dhawaan soo gaareen magaalada Muqdisho, halka kuwa kalena la filayo inay dhawaan soo gaaraan caasimadda. mucaaradka ma lahan wax hadaf siyaasadeed ah oo mideeya marka laga reebo in ay ka siman yihiin inay kursiga ka tuuraan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. mucaaradka siyaasiyiinta ah ee hadda isbahaysiga ah ee halka dhinac ka soo jeeda waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo aan weli banaanka isa soo dhigin balse hadda galay xeyndaabka mucaaradka. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dhawaan safar ku imaan doona magaalada Muqdisho. afayeenkii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadda aad ugu xirmay madasha xisbiyada qaran, xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble oo ah hogaamiyaha xisbiga Ilays, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi, senator Muuse Suude Yelaxow oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka, iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ah ganacsade talooyin siiya mucaaradka. xildhibaano, wasiiro hore iyo siyaasiyiin kale ayaa sidoo kale qayb ka ah isbahaysiga mucaaradka ah. dadka aan soo sheegnay ayaa qaarkood si toos ah banaanka iyo kulamada siyaasadda uga qayb gala, halka qaarka kalena ay gadaal ka fadhiyaan waxa socda balse ay qayb ka yihiin abaabulayaasha. isbahaysiga labaad ayaa ah kan muxaafadka ee dawladda, waxaana gebigiisa uu ka kooban yahay xubno dawladdu ku jira oo ay ka go'an tahay inay talada dalka sii hayaan ama dib loo soo doorto. waxaa uga horeeya madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah hogaamiyaha muxaafadka isla markaana ah qofka hagaya aragtiyadooda siyaasadda. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude, taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, siyaaya xilka ra'iisul wasaaraha Maadi Maxamed Guleed Qadar, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qoorqoor, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho inkastoo miisaankiisa dhanka siyaasadda uu aad u yar yahay. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo lagu tiriyo Villa Soomaaliya inkastoo maalmihii la soo dhaafay u muuqday inuusan sidii hore ku ahayn. Cali Cabdullaahi Guudlaabe oo ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle balse ay dawladdu u diyaarinayso madaxweynaha Hirshabeelle. waxaa jira madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo aan ilaa iyo hadda meelna lagu xisaabin maadaama uu kursiga ka degayo isla markaana aan la ogeyn cidda uu ku biirayo mucaaradka ama muxaafadka. labadan isbahaysi iska soo horjeeda ayaa isku haya siyaasadda Soomaaliya, waxaana muuqata in aad loogu loolami doono tartanka doorashada soo socota. wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni isagoo ku eedeeyay inuu siyaasadeynayo waxbarashada ardayda Puntland. siyaaya wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in tallaabo adag laga qaadayo dugsiga ka hor yimaada manhajka cusub ee dugsiga sare oo ay dhawaan hirgelisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. Cabdullaahi Goodax Barre ayaa si gaar ah u dul istaagay dowlad goboleedka Puntland oo sanadihii la soo dhaafay si cad uga hortimid ka qayb noqoshada imtixaan sanadeedka dawladda ee dugsiga sare iyo kan dhexe oo sanadkan bilowday wasaaradda waxbarashada. dowlad goboleedka Puntland ayuu ku dhaliilay in ay siyaasadeynayso waxbarashada oo ah mustaqbalka ardayda Soomaaliyeed maadaama ay diiday ka qaybgalka imtixaanka dawladda. waxa uu ka dalbaday in ay aqbasho manhajka dawladda ay diyaarisay. sidoo kale Cabdullaahi Goodax Barre ayaa carabka ku dhuftay haddii maamulka Puntland waxa ay rabaan loo yeelo in waddanka intiisa kale uu kala daato, wuxuuna ugu baaqay Puntland inay qaadato manhajka cusub ee dawladda.
haddii dhinaca maamulka Puntland waxa ay rabaan la yeelo tafaaruq iyo wadanka intiisa kale inuu kala daato ay dhalaysaa sidaan annaga wasaarad ahaan aaminsanahay. hadda waa shahaadada kaliya waxa muuqdo laakiin wax badan oo kale ayaa ku lamaansan. waxaa kamid ah manhajka annaga waxaan rabnaa Puntland inay manhajkaas qaadato. maxaa yeelay waa manhaj qaran oo shaqo badan iyo howl badan ay gashay, qaybna ay ka ahaayeen iyaga laftirkooda. xindaabkii guud oo hore markii la sameynayay iyo muqarrarka markii la sameynayay qayb ay ka ahaayeen. in maantay manhajkii haddana aysan qaadanin oo dhinacaas la siyaasadeeyo oo la yiraahdo Puntland wax gaar ah ayay yeelanaysaa, waa wax laga fiican yahay. runtii khaladaadka noocaas markay dhacaan saameyn aad u ballaaran yeeshaan. marka waxaan jeclaan lahaa mufakiriinta Soomaaliyeed iyo inta ummadda Soomaaliyeed waxgarada arrintaas inay muxuu ahaa ay ka howlgalaan, qanciyaan muxuu ahaa Puntland maamulkeeda inay ummadda Soomaaliyeed waxbarashada ay la qaataan ay ka mid noqdaan. haddii iyagu ay aaminsan yihiin in wax ka duwan oo wanaaga iyagu gaar u leeyihiin ay jirto, inay soo bandhigaan oo mataqaanaa wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee maamul goboleedka inta la fariisto ay yiraahdaan war wixiina markaan aragno waxaan oo ka faa'iido badan aan haynaaye hal la kordhiyo hal lagu wanaajiyo. dialogaas inuu tago ma aha. laakiin waxaan qabo anaa og anaana aqaano ilaa haddana waxaa weeye mataqaanaa anaa iskoobayo waa fikir laga fiican yahay. marka waxaan jecelahay inaan u abiil gareeyo ummadda Soomaaliyeed ee mufakiriinta ee waxgaradka inay muxuu ahaa markaan lagu kabnaado Puntland mataqaanaa mar raba in loo caqliyeeyo laakiin lala taliyo inaysan ummadda aysan ku sii dheeraanin ardadaas dhibaatada siyaasadeed ee la dul saaray. waa run arrintan mudday taagneed waana soo noqnoqotay. runtii waa nasiib darro aan dhihi karaa. midda kaliya oo annaga wasaarad ahaan aan samayn karno waa inaan dhaqankii hore aan ku soconno. waxaa soo kordhaya cadaadiska ganacsatada Kenya ay ku hayaan dawladda kadib markii gabi ahaanba Soomaaliya iyo Tanzania ay gaareen go'aan ay xayiraad ku saarayaan duulimaadyada iyo xiriirka ganacsi ee Kenya. dawladda Tanzania ayaa gabi ahaanba joojisay duulimaadyadii Kenya kadib markii Kenya ay ku adkaysatay in dadka reer Tanzania ay imaanaya dalkeeda la karantiilayo muddo 14 maalmood ah. taasi beddelkeeda Tanzania waxay doorbiday inay gabi ahaanba joojiso duulimaadyada. Soomaaliya oo weli u furan dhinaca duulimaadyada rayidka balse xayiran duulimaadkii dhinaca ganacsiga ee qaadka ayaa sidoo kale dhaliyay culays dhaqaale oo ganacsatada Kenya ku cadaadinayaan dawladooda inay wax ka bedelaan habdhaqanka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Tanzania. dawladda Soomaaliya ayaa shuruud ku xirtay duulimaadyada ganacsi ee qaadka ka yimaada Kenya in dawladda Kenya fuliso shuruudaha dawladda Soomaaliya, taasoo ugu weyn tahay in ay joojiso duulimaadyada sii mara Wajeer ee lagu baaro muwaadiniinta Soomaaliya, canshuuro lagu soo rogay qaadka iyo in ganacsiga Soomaaliya loo iibgeeyo Kenya, taasoo aysan weli dawladda Kenya aqbalin. deegaanka Shabeello oo dhowr iyo 20 kiiloomitir u jira deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug waxaa muddo 3 jeer maanta oo kaliya ku dagaalamay xarakada Al-Shabaab iyo dadka deegaanka. ilo xog ogaal ayaa inoo sheegay in dagaalka uu sababay dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac. waxaa socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay sameynayaan Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ee dagaalka la galay. qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dadka deegaanka dagaalka uu ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac, sidoo kale Al-Shabaab la gaarsiiyay khasaare dhimasho iyo dhaawac. dagaalka ayaa saakay dhacay, wuu istaagay, mar kale ayuu barqanimadii dhacay, muddo kadib wuu joogsaday, balse duurnimadii maanta ayuu dib u bilowday dagaalka xoogiisa oo sababay khasaaraha labada dhinac kala gaaray. dadka deegaanka waa ay barakaceen ayuu yiri qofkan oo kamid ah dadka deegaanka. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa 12aad guutada 15aad ayaa dhawaan tagay deegaano ka tirsan halka dagaalku ka dhacay, waxaana xilligaasi ka socday iska hor imaad dhexmaray Al-Shabaab iyo dadka deegaanka. guud ahaan daawadayaal waa naga intaa warkii caawa aad ka daawanayseen Fagaare Production. waad ku mahadsantihiin daawashada warkeena. inta ku kulmayno warkan warkiisa xiga nabadgelyo.